guddiga horumarinta degmada 26 Juun ayaa qadar lacaga 13,000 iyo foostooyin daamiro ku wareejiyay ku-xigeenka duqa caasimadda Hargeysa taasoo loogu tala galay wado lagu dhisayo xaafadda Goljanno ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga horumarinta 26 Juun Sheekh Maxamed Xaaji Maxamuud Xiire iyo gudoomiyaha 26 Juun Cumar Axmed Aadan waxa dhici doona wadadan insha Allah taala maalmaha way socotay in badan baynu sugaynay waa maaragtay يعني إلا دولتي هو صهر أي ندبس عني إلهي بقى مركتي قدري إن قلنا ما قلنا إن هيلان شقين يسا أي مانتا شقدي أي نين تبدأ سويني أي مركتي كوجو ليسين لي شقدي فرح الله قلان أو تنو كلي ما هو دوين بدنو مجالات كم ده أي نو أركي إنه ما أنتيني وضان إلهي بقى إنه مركتي روانتي وبرينا إنه قعن قبته أو عمل كمان أكسني وضان وكوجو ليه أو أبقى الكودة في آخر بقى كهلا إن شاء الله تعالى أبالك مارك شقده ونكسيني هيا waxaan joognaa wadadii xawaale ka bilaabmaysay ilaa Goljanno Axmed Raan ku dhamaanaysay waxaan joognaa gudida qiimaha badan ee sheekhu ugu horeeyo waxaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ay ugu soo shaqeeyeen wadada inta badan daamirka ay gacanta xalaasha ugu hayeen waan ku ducaynaynaa waan la garab taaganahay shaqada waxa kale oo sheegaya dadweynaha soo galay wadada ee xaafadda degan inay dib uga soo gurtaan hareeraha ay dib uga durkaan kulintu way imanaysaa insha Allah taala shaqadaana waan galeynaa gabagabadiina waxa halkaasi uga mahadnaqay guddiga horumarinta degmada 26 Juun ku-xigeenka duqa caasimadda Hargeysa Khadar Axmed Cumar wadadan waxay ka mid tahay wadooyinka mudnaanta nool wadadan waxa weeyaan waa wado socodka magaalada fudeydinaysa saxmadda ka saaraysa wadada weyn ee Togdheer waxa weeyaan wadadaas haday noo samaysanto waa wado halbowle oo ummadadan ay isku socodkoodii wanaagsanaysa sidoo kale halkan waxa ay buur wada aragtaano maanta waynu mari karaynaa oo inagii cagafta gelinay oo wati shaqadu ayaamahan bay noo socotay waxa weeyaan wadada qofna binaadamku u dhaadhici jirin dadka halka ka hooseeya wayadna may gaari jirin ambalaasna mu gaari jirin waan xasuustay maalintii Allahu naxariistay walaalkaa u dhintay weynigi miidkii gacmaha ku soo qaaday maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin gaariga yaraan wato ayaan ku soo maray taasiba waxa weeyaan waa wax weyn imikii haatana wadada kumay jirin sanadkan qorshayaashii waaweynaa ee nagu talagalnay isi haddana waxaanu ka adkeysan kari weynay wadada dhibaatada ka jirtay iyo isku duubnidiina iyo sidaad u wada socoteen iyo ka gudi ahaan maamulkiina sidoo u dhisnaa ayaa anaga riixay waana idinka mahad celinaynaa inaad dadku community-gu inay iyo bulshadu dawladda ay riixaan oo yiraahdaan war waxaasaan u baahanahay baahidaasaan haysata waxaasaan u haysanaa marka anaga wadooyinka mudnaanta nool waxa weeyaan waa wadooyinka waaweyn ee suuqyada iyo xaafadaha inta ugu muhiimsan isku xidhaya wadadani waa wado suuq ka soo baxaysa isku xidhaysa wadada kale Xeraawr iyo Xawaadle waa wadada isku xidhaysa waa wadada ka baxda Xeraawr ee marta iyo wadadii suuqii halkeeni Makal Mukarrama halka Togdheer kaga dhacayso weeyaan waa wado kiiloomitir wax yar la weeyaan shaqadaasina insha Allah biin la karim sida ugu dhaxsaha badan leh ayay inoogu dhameystirmi doontaa